بسم الله waxaynu qaadanaynaa maanta waxaynu niraa waxa loo yaqaan erey iyo word waxa la yiraahdaa maalinta buugga la qaadanayo erey iyo word oo looga jeedo fortchatting inaan fortchatting kor u qaadno inaan ereyo badan iyo weero badan barano waxa kale oo maalinka la qaadanayo buuggan fangaraqbajun Soomaaliya aan meesha ku jirin xad looma eego ereyada maadaama ereyo iyo weero yihiin ereygan ma bianis ba lagu dhigan jiray ma bisfay ba lagu dhigan jiray ma sianis ba lagu dhigan jiray lama eego waxa la eego ereyada isku baxda ah forte family for example ereyada shraym marba la isku qaataa ereyada galayhin oo maanta aynu isku qaadanayna hal mar baa la isku qaadanaya ereyada sen la xiriira hal mar baa la isku qaadanaya ereyada saagin la xiriira hal mar baa la isku qaadanaya aidan forte family baynu eegayna laakiin ma eegayno categorygooda for example waxa laga yaabaa galayhin waa asfay aus galayhin waa bisfay ka soo qaad fe galayhin oo angalayhin oo kale waa bisfay angalayhin laakiin trost ay bisfay tahay ab galayhin oo kale iyadana waa si aan bisfay aydan uma joojinayno waan sii dhiganayna sababtoo ah fahamka waxay noo fududeynayaan inaan ereyada isku baxda qaadano waxay noo fududeynaysaa xiftinta inuu qofku wixii fahmo oo xiftiyo haddii laakiin ereyo kale fog lagu dhigaan isku bahna ahayn isku macnana ahayn ma fahmaysid aydan laba xaaladood baan mid ku saraynay ima in ereyo isku macnaa la keeno haddii rabaan ay kala baha ahaadaan laakiin isku macno yihiin meel wada socdaan waa ima inay yihiin ereyo isku baha macnahooda ha kala duwanaado laakiin waa inay isku family yihiin labada xaaladood ayaa la raacaa ardayda cusub ardayda hore way og yihiin so levelna looma eego ereyo idinka sarreeya marka qaar laydin dhigayaa iyo weero aad idinka sarreeya laakiin waxaan rajeynayaa inaad fahmaysaan sidoo kale casharka guud ahaan buugga un baan ka soo qaadanaa meel kale kama keeno maalinta in buugga dhiganayno hal maalin baa la dhigaa sababcii labada maalin oo kalena cashara kale ayaa la dhigaa so ausgleichen macnaheeda afka soomaaliga waxa weeye isku dheelitirid magdhow magsiin u magdhabid halkan way isku macno dhowdhowdahay isku dheelitirid horta waxa laga wadaa wax oo la isku dheelitirayo isu simid oo kale saasa laga wadaa magdhow ama magsiinna waa isku mid qof in wax dhibaato la gaarsiiyay mag la siiyo oo wixii la gaarsiiyay mag looga siiyo looga magdhabo ama u magdhabid iyaduna waa iskala mid in qofka dhibaatadii la gaarsiiyay wixii loo geystay mag laga siiyo ausgleichen ayaa la yiraahdaa macnahaas waa loo adeegsadaa sidoo kale ausgleichen waxaa loo adeegsadaa markii laba kooxood oo ciyaaraya ee barbare galaan barbare af Soomaaliga taasna waa la yiraahdaa aydan barbarena ausgleichen waa loo adeegsadaa laakiin waa markii dhinaca ciyaaraha loo adeegsanay macnayaashaas ayaa loo adeegsadaa jumlooyinkan ku fahmeynaa marka wuxuu yiri diese Übung gleicht den ganzen Körper aus diese Übung gleicht den ganzen Körper aus wuxuu yiri jimicsigan wuxuu isu dheelitirayaa jirka Körper waa jirka Übung waa jimicsigan wuxuu isu dheelitirayaa jirka oo muxuu ka wadaa mid calool weyn oo luga dhuudhuuban ba jimicsi sameeyay asay Soomaalidu badan yihiin waxa laga yaabaa haddaad jimicsigaas samaysid inaad isu dheelitiro jirkaaga oo miisaan aad yeelatid oo caloosha iska jirtid oo qof xogaas siman oo jirkiisa isla siman yahay aad noqotid aydan diese Übung gleicht den ganzen Körper aus jimicsigan wuxuu isu dheelitirayaa jirka aydan isu dheelitirid taas ayaan ka wadaa der Gefin gleicht den Verlust aus der Gefin gleicht den Verlust aus faa'iidada waxay magdhow u tahay khasaaraha der Gefin waa faa'iidada der Gefin faa'iidada gleicht waxay magdhow u tahay den Verlust waa khasaaraha den Verlust aus faa'iidada waxay magdhow u tahay khasaaraha oo haddaad faa'iido heshid faa'iidadaas waxay kaaga soo magdhow kaaga noqonaysaa khasaarihii kugu dhacay magdhow halkaas u tahay die freien Tage fahren eine ideale ausgleichen nach all den Überstunden die freien Tage fahren eine ideale ausgleichen nach all den Überstunden maalmahan fasaxa ee wanaagsan waxa ay bedel u yihiin ama waxay magdhow u yihiin yani waxay bedel u yihiin ama waxa lagu celinaya waxa lagu magdhabaya waxa lagu gudayaa saacado badan oo shaqo ah Überstunden waa saacado shaqo ah yani alle saacadihii yani shaqada ahaa saacadihii shaqada dheeraadka ah oo dhan ayay u yihiin magdhow yani maalmo waxa qaadatay fasaxa oo wanaagsan maalmaha fasaxa ay waxay magdhow u yihiin dhammaan saacadihii dheeraadka ayaa shaqaysay maalmaha saacadahaas lagu magdhabaya waxa saacado dheeraad ah lagu shaqeeyay waxa lagu yiri intaas oo maalmood waa fasax tahay marka saacadahaagi waa lagu celinayay
Aydan diese freien Tage fahren eine ideale Ausgleich nach all den Überstunden. maalmahan badan soo maalmahan wanaagsan ee fasaxa ah ideale wanaagsan way adjective is ideale maalmahan wanaagsan ee fasaxa ah waxay magdhow u yihiin dhammaan saacadihii dheeraadka ahaa ee la shaqeeyey die Mannschaft erzielte den Ausgleich in der zweiten Spielhälfte die Mannschaft kooxda erzielte waxay heshay den Ausgleich barbare ayay heshay barbare in der zweiten Spielhälfte qaybtii labaad ee ciyaarta kooxda qaybtii labaad ee ciyaarta barbara ayay heshay laba kooxood baa isla ciyaarayay mid baa gool laga dhaliyay qaybtii hore waa la kala tagay qaybtii labaad baa la isku soo noqday kooxdii kale ayaa qaybtii labaad waxay heshay barbare qoradii bay bareejaysay aydan kooxda waxay heshay esiilte esian bay waxay ka timi esiin waa heritaan soo macnaheedu kala duwan loo isticmaalay laakiin hadda heritaan ayaa loo isticmaalay aydan kooxda waxay heshay barbare qaybtii labaad ee ciyaarta galaykin macnaheedu afka Soomaaliga waxa weeye isleeg isla siman ama isku jaad ah isku mid ah wax isku jaad ama isku mid ah waa loo isticmaalaa wax isleeg ama isla siman ah galaykin waa loo isticmaalaa macnayaashaas ayaa afka Soomaaliga loo isticmaalaa tusaale galaykin waa daati die Schwestern gleichen sich sehr die Schwestern gleichen sich sehr labada hablood ee walaalaha way isleegihiin labada hablood ee walaalaha way isleegihiin gleichen sich sehr way isleegihiin ama way isleegihiin labada waan isticmaali karnaa sie gleicht ihrer Mutter hooyadeed ayay u egtahay sie gleicht ihrer Mutter hooyadeed bay u egtahay ama hooyadeed bay leegtahay yani hooyadeed bay leegtahay sax ma noqonayso laakiin hooyadeed bay u egtahay hooyadeed bay u ekaansho wax isu eg ama wax isku mid ah ama wax isku jaada waxyaabahaas ayaa gleichen loo isticmaalaa macallin hal mas'aal ku weydiin karaa ereygan gleichen ma loogu dhawaaqi karaa gleichen gleish oo kale kannst auch ja waa loogu dhawaaqi karaa waa isku mid soo maaha genau entweder ausgleichen oder ausgleichen aber ausgleichen ist sehr so abgleichen waxa weeye isbarbar dhigid isku dheelitirid wax badan oo saas macnaheeyaashii hore soo marnay kama foga abgleichen isbarbar dhigid in laba shay la isbarbar dhigo wax la isbarbar dhigo ama in wax la isku dheelitiro oo macnaha ausgleichen oo kale mar ayay abgleichen samaysaa tusaale ahaan wir müssen unsere Ambitionen und ihre Durchführbarkeit abgleichen wir müssen unsere Ambitionen und ihre Durchführbarkeit abgleichen waa in aan isku dheelitirno waa in aan isku dheelitirno hamigeena iyo suurtagalnimadiisa ambitionen waa hami waxa qofku haminayo wax qofku yani damcayo wuxuu qofku damcayo Durchführbarkeit waxa weeye suurtagal hami yani suurtagalnimada hamiga un ihre Durchführbarkeit suurtagalnimadiisa yani waxa aynu ka fekereyno iyo suurtagalnimadiisa waa inaan isu dheelitirno for example waxaa leedahay bil kadib waxaan rabaa inaan bisfay qaato bisfay waa hami kugu jira laakiin suurtagalnimada inta uu suurtagal tahay isku dheelitir oo waxaad tirahdaa bisfay bil kadib ma qaadan karee bi aynis waa inaan qaataa horta kabacdi aan bi aysfay qaadan kara aydan wir müssen unsere Ambitionen und ihre Durchführbarkeit abgleichen waa inaan isu dheelitirno ama waa inaan isbarbar dhigno hamigeena iyo suurtagalnimadiisa intee in leeg ayuu suurtagal yahay hamigaas intee in leeg baan xaqiijin karnaa angleichen macnayaashada iyaduna waxaa ka mid ah isku toosin ama isku hagaajin maxaa laga wadaa isku toosin in wax la isku toosiyo la isku hagaajiyo isku hagaajin ama isku toosin waa isku mid macnaha afka Soomaaliga tusaale die beiden Unternehmen gleichen ihre Politik nach der Fusion einander an die beiden Unternehmen gleichen ihre Politik nach der Fusion einander an labada shirkadoodba Unternehmen waa shirkado markay kaligeed tahay waa das Unternehmen markay plural yihiin oo jamc noqdaan die Unternehmen ay noqonayaan article-ka isbedelaya aydan hadda maadaama laba shirkadood ay ka badan yihiin die beiden waa laba shirkadood jamc bay noqdeen die bay adeegsan marka wuxuu ku yiri die beiden Unternehmen iyo firma waa isku mid ka rabtaa isticmaali kartaa
aydan wuxuu yiri die beiden Unternehmen labada shirkadood gleichen ihre Politik waxay isku hagaajiyeen siyaasadooda waa fal la soo dhaafay waa imperfect gleichen ayaa isku bedeshay waa imperfect weeyaan aydan wuxuu yiri labada shirkadood waxay isku hagaajiyeen siyaasadooda yani siyaasadoodii bay isku beegan shirkad walba siyaasad bay leedahay ay ku socoto marka shirkadaha siyaasadoodii bay isku hagaajiyeen nach der Fusion eine andere an kadib markii ay midoobeen Fusion waa midoobid kadib markii ay midoobeen siyaasadoodii bay isku hagaajiyeen oo shirkadana siyaasadeedii ay tan u geysay tanna siyaasadeedii tan u geysay marka shirkadan labada shirkadood siyaasadoodii ayay isku hagaajiyeen kadib markii ay midoobeen labada shirkadood siyaasadoodii ay isku hagaajiyeen kadib markii ay midoobeen aydan angleichen isku hagaajin waa loo isticmaalaa Bauarbeiter werden für den Hausbau den Boden angleichen shaqaalaha dhismaha Bauarbeit waa shaqaalaha dhismaha Bauarbeit ninka shaqaalaha dhismaha ah werden für den Hausbau korintan guriga la dhisin den Boden angleichen waa inuu dhulka simid yani isku dheelitirid dhulka marka hore waa la qodayaa dabadeedna waa la isla simayaa marka intaan guriga la dhisin waa in horta dhulka hoose la simo haddii dhulkii hoose kala dheer guri la dhiso dee gurigi ma dhismayo dumaya marka shaqaalaha dhismaha ka hor intaysan guriga dhisin waa inay dhulka simaaniin waa inay dhulka isla simaaniin isla simidna waa loo isticmaalaa aydan isbarbardhigid isku dheelitirid ama isla simid macnayaashaas ayaa loo adeegsadaa vergleichen waxa weeye iyaduna isbarbardhig vergleichen for example laba wadan inay isbarbardhigtid Soomaaliya iyo Deutschland zum Beispiel kann man nicht Somalia mit Deutschland vergleichen Deutschland iyo Soomaaliya laysma barbardhigi karo oder du kannst nicht Deutschland mit Somalia vergleichen Jarmalka Soomaaliya ma barbardhigi kartid aydan isbarbardhig eine Kopie mit dem Original vergleichen eine Kopie mit dem Original vergleichen kobiga iyo originalka isbarbardhig kobiga iyo originalka isbarbardhig kobi warqad kobiya iyo warqad originala ama sharci kobiya iyo sharci originala isbarbardhig kobiga iyo originalka kann sich mit ihnen nicht vergleichen kann sich mit ihnen nicht vergleichen isaga adiga ka isma barbardhigi karo wada idinka isma barbardhigi karo nixta adiga sondar idinka halkana waa inan plural baa loo jeedaa isaga idinka kiin isma barbardhigi karo isaga waa qof nina laga hadlaya isaga idinka kiin isma barbardhigi karo idin laba mid ah wada oran kartaa du kannst dich nicht mit mir vergleichen adigu aniga kii isma barbardhigi kartid laakiin hadal saxan maaha dadka mar walba simantiin qofka ka sareysa ma jirto aydan kann sich mit ihnen nicht vergleichen isaga idinka kiin isma barbardhigi karo wuu idinka duwan yahay aydan isbarbardhig vergleichen isbarbardhig haddii jiro qof su'aal qabo qof aan fahmin macalin daanke casharkan ku horeey su'aal ka qaba ubunki ku celid miya jarmalka mise ayada macno badan leh hadda adigana macno kala noo rushay ubunki naq xagee ka timid naq contextiga ku xiran tahay haday contextiga ubun jimicsi bay noqotaa ku celcelin way noqotaa macnayaal badan bay noqotaa iyo naq contextiga xukumaysa contextiga ku jirto waxa weeyaan jimicsi waa norm gross loo qoray article bay wadataa soo ma jeed identity übung jimicsiga gleicht den ganzen Körper aus wuxuu isu dheelitirayaa jirka jimicsi hadaa samaysid dadka inta badan jimicsada oo sportiga jirkooda waa siman yahay waxba calool weyn iyo luga dhuudhuuban iyo waxaas male okay macalin heute übungi macalin ma oran karaa heutige Übung kannst auch sagen nicht heute Übung sondern heutige Übung so heutige Übung ist die ganz schwer kannst auch sagen aber dann was meinst du heutigen Übung zum Beispiel du hast eine Übung gehabt zum Fitnessstudio oder zum Deutschkurs du hast etwas geübt irgendetwas dann kannst du sagen boah heutige Übung ist sehr schwer ich bin total fertig maanta jimicsiga ama waxaan maanta sameynayay yani waxaan maanta ubunga ku sameynayay waa adkaa laylisna waa loo isticmaalaa ubunga layliska wuu adkaa wad oran kartaa ama jimicsiga wuu adkaa iyo maxaa ka wadaa okay thank you man macali gifin maxaad ka wadaa maxaa ku timaa der gefin waa nom so gefin waa nom isku bedeshay way der gefin faa'iido way hadda der gefin waa faa'iido
Okay, verlustne. Verlust. verlust der verlust so den verlust der verlust ay ku timi iyadana waa khasaare der verlust so khasaare Okay, thank you. aydan der gefin der gefin faa'iidada galaayxda waxay magdhow ka tahay den verlust aus khasaaraha soo faa'iidada waxay magdhow ka tahay khasaaraha faa'iidada aanu helay khasaarihii dhacay ayay magdhow ka tahay lacagihii lumay ay dib u soo celinaysa ama lacagii la kharash gareeyay macal erayadan waxa weeye dhammaantood waa bahalkii miyaa reflexive haven miyaa markaa reflexive verben ha wo hast du Meel lagu reflexive Abdulaziz zum Beispiel diese Übung gleicht den ganzen Körper aus hat dies eine May- reflexive drin auscalation ayaan sheegaya macal calation ja ausgerechnet wo ist reflexive denn wir haben es may hadda ma bogga labaad baan ku arkay bogga labaad يا شامل عبد العزيز فيبكا markii jumlo lagu dhiso waxaad ogaan kartaa inuu yahay reflexive verb iyo inuusan ahayn waxaad ogaan kartaa inuu yahay verb mid preposition iyo inuusan ahayn sababta jumlada verb markaad keligii baratid macnihiisa baratid aad auskareen macnaheeda kaliya ku baratid macna kuma sameynayso laakiin markii jumlooyin lagu dhiso grammatic ahaan baa u dhismaysa jumladan hadda auskareen jumlooyin baynu ku dhisnay jumlooyinka meel la miya reflexive ka soo gashay meel la miya sikh ama diikh ama miikh ku aragtaa nein may hadda tan kuma arag automatic waynu fahamnay inaysan reflexive ahayn so qaybta labaad aan imaadno for minus student hadda meesha ugu dambaysa oo kale calculation a consist mid ina niche calculation Sish taasoo u maleeyay macalin meesha yeah ka waa eeg reflexive laakiin ugina wuu saxan yahay waa reflexive so verb waa reflexive verb laakiin waa unecht reflexive verb so unecht reflexive verb maxaa laga wadaa waa reflexive laakiin khasab maaha inay reflexive ka dhigtid marna waa ka tegi kartaa marna waa qaadan kartaa for example eine Kopie mit dem Original vergleichen wir haben keine reflexive hier aber hier haben wir haben reflexive kann sich mit ihnen nicht vergleichen isaga idinka keenis ma barbar dhigi karo aydan waxa la yiraahdaa unecht reflexive waa ku saxantay waa reflexive laakiin waa unecht hadhow baan kala baran doonaa insha Allah echt iyo unecht okay waa saxantay laakiin Cabdulaziz kaas waa reflexive waa saxantay so waan fahmnay casharka soo ma qof su'aal ka qabana ma jiro mawduuc kale aan rabaa inaan u gudbo mar haddaan qofna waxba ay weydiin that means waan fahmnay aan ka gudubna wey so waxaan rabaa jumlooyin inaan idin yeedhiyo Soomaaliya waxaa ku qoraysaa nin German haye qaybta waxaan tegaynaa qoritaanka jumlooyinkaas ayaad Soomaali u bedelaysaan diyaar baa u tihiin soo ma mikrofonkayga ma xidhna qofkii jawaabayna male sidee wey macalin male mee waa een ku maqlayna si haa fiican macalin waan diyaar joognaa ina waxaan u maleynay mikrofonkayga xidhan may aydan macalinka muud ka soo baxayna waqti weera qaa dib male insha Allah aydan qof kasta oo ardayda cusub ah ha tago qaybta wax la isugu soo qoro ardayda hore way wada garanayaan saan idinku yeeriyo weeraha doodna u soo qortaan qof kastana fadlan briefad ha ku soo qoro yaan laga qashin waxa soo qortay ardayda cusub haday garanayaan macalin horta marka hore in fahansiin haday garanay kino aamin oo kale way garanaysaa hore meesha uga tirsanaan jirtay degan mad garanaysaa chat-ka sabaha qaybta chat-ka chat-ka qaybta ugu wada hadlayo qaybta macalin weli ma qorin markaa ma garan ii sheega macalin anigana ma garanayo okay dhamaantiin waxaa raadisaan in telefonka wax ka raadsan qof kasta oo aan garanaynin fadlan hal mar baan rabaa inaan isla raadin soo qof kasta oo aan chat-ka garanayn hay dhageysto dhamaantiin waxa wada tagtaan telefonkiina meel 3 dhibcood ku qorantay qof walba ha raadiyo meel 3 dhibcood ku qorantay hadduu English ku yahay waa mo hadduu German ku yahayna waa mea meesha qof walba ha raadiyo 3 dhibcood halka chat-ka gudihiisa ginaaw so waxaan ka hadlayaa Zoom-ka gudihiisa yes aniga waa hada meesha chat-ka qorantay miya ginaaw chat baa qofka galay soo maaha dhamaan intiina chat-ka ku jirta waxaad idin soo qorayaa hadduu English idin yahay send to everyone send alle uu ii soo qoray hadduu Dutch yahayna waa send an alle aydan halka alle ama everyone wixii kugu qoran ba halka ku dhuf alle ama everyone ninba wixii ugu qoran
haddii alle kugu qoranta alle ku dhufo Yes. haddii everyone kugu qoranta everyone dabadeedna magacyada ardada ayuu hoos kaa tusayaa soo ma waxaa ka doorataa Baasha Academy qof kasta Baasha Academy ha doorto waa haynaa qof kasta meeshii everyone ama alle ay ku qornayd hadda Baasha Academy baa ugu qoran soo ma dhammaantiin salaamu calaykum qof kasta ay soo qor ama wuxuun ama hay ama wuxuun hay soo qor لا ميل خلطة ما كلا inaa degan waa saxan tahay filsan waa saxan tahay sahra sheekh waa saxan tahay saddexdiina waa saxantiin yaa ii dhiman muniiro iyo aamino weli ma haya معلم وكوسة قري ما هيسيد هلو معلم muniirana way saxan tahay degan muniira way ugu soo horeysay way saxan tahay degan way saxan tahay filsan way saxan tahay sahra sheekh way saxan tahay aamino yuusufna way saxan tahay dhammaantiin brifaad baa wada tihiin mona iyadu safisa way garanaysaa way soo qortay soo aydan dhammaantiin waa wada garanaysaa nin يا معلم سمرد مركا وين نقبل محن قرا gina way idinka sabarda ma rabno soo maamo ma haysataa adi maya aniga ma haysto macallin waa iga boodboodayaaba macallin maxaan haystaa halkaan ku dhuftaa macallin meel 3 dhibcood ay ku qorantay taleefankaaga ma haysaa kaamirada dhinaca meesha ku dhufo chat buu ku tusayaa soo maaha waa soo qori jirtay maamadu waa xariifada labadii hadda muddaan ka maqnaa soo maaha maama chat waa heshay soo maaha lisuga daba macallin meesha 3 dhibcood ku dhifo chat buu hoos ka tusayaa chat ku sii dhifo chat waa kan ha sax kina meesha chat markaa ku dhifatay soo dodge kuma aha waa doja kina wuxuu ku leeyahay they are sending an alle halkay ku qorantay ku dhifo doona Baasha Academy ka dooro alle masaga miya macallin alle ku dhifo alle meesha ku qorantay maama ku dhifo dabadeedna Baasha Academy sii dooro salaamu calaykum isoo qor markay Baasha Academy soo dooratay waaba ii qaadmi wada macallin halkaad sheegaysaa alle markaa ku dhifatay ardada magacyadooda hoos kama tusayo ma igama tusayo meel kale aan mala gala ma garanayo meesha sawirada dadku labada qof ku sawirantay taabo halkaas adigu ka soo gashay Aamina ha halkaas laakiin qof ka soo galay wariga ma arag 3 dhibcood bay ardayda dhanka soo gali jiray يا سدح دبعود ما لو يفوت كلا يسوع صاري سدح دبعود wax kale ku soo saaray aha dan maama waxa tagtaa meesha labada madax isdin ciyaalin bay tiraamin halkaas sax halkaas waa mood kale iska saara macallima halkaas waa khalad maya waa telefonadooda ay ka duwan u kaadi saaraya macaan halkaasna chat ku soo saaray halkaas chat mu ku soo saaray maama halkaas dadku ku saaraya magacyadooda magacyadii way ii soo baxeen laakiin magacyadii ma soo geenaaw hadda waxa dooratay Baasha Academy magacyada Baasha Academy ka dooro waa iga qarsoomeen hadana macallin meesha ku noqo meesha madaxyada ku dhif dib male maama hadaa weyda adigu wada sabka igu soo qor qof kaliya tahay xagga wada sabka igu soo qor faraha ka qaad adigu wada sabka tag wada sabkayga waa haysaa soo maaha kan hadda wax kaaga soo qoriyay adigu waa ka fududahay ardada wada sabkaaga isticmaal zoomka bas ka dhaaf soo laakiin ardada kale looma ogola maamada bes wey ayagu cali ardayda kale waxa tagtaan meesheen ku ballanay qof waliba marka wax soo diray fadlan iska hubi meesha way isbedeli karaa meesha hadda Baasha Academy ka dhigatay daqiiqad kadib way isbedeli kartaa mar walba qoraal soo qorisid iska hubi korma alle ba kugu qoran mise Baasha Academy alle hadii kugu qorantay qof kasta waxaaga wuu dirtay Baasha Academy hadii kugu qorantay Baasha Academy wuu dirtay soo dhowr weerooda yaryar baan idin yeedinaya insha Allah dhamaantiin diyaar baatiin soo ma Ali wuxuu aaday iskoolka Ali ninka la yiraahdo iskoolka ayuu aaday haye soo qora dhamaantii qof walba brifaadka soo qora Ali wuxuu aaday iskoolka dhowr jumlaan idin yeedinaya bubsi Ali wuxuu aaday iskoolka Xaawo waxay joogtaa shaqada Ali wuxuu aaday iskoolka waa jumlooyin fudud aan eegay inaad si fiican soo qortaan baritiin aydan Ali wuxuu aaday iskoolka Xaawo waxay joogtaa shaqada aniga
waxaan ka yimi axmed cali wuxuu aaday iskoolka xaawo waxay joogtaa shaqada aniga axmed ayaan ka yimi saddexdaa jumlo ayaan idinka rabaa inay isku soo daba qortaan dabeedna jumlooyin kaleenu eegeyna haye qof waliba maskaxda ka shaqaysiiya dodge maxay ka noqonayaan cali wuxuu aaday iskoolka xaawo waxay joogtaa shaqada aniga waxaan ka yimi axmed ama macalinka ayaan ka yimi kan offside macalin hal jilmid baa laga wada dhigaya mise saddex bay noqonaysaa haddii caqligaaga ay kula tahay inay hal jumlo wada noqonayaan هذا هو صدق جملة كردون هل جملة إسلام نقول كلام علي وحى هذه سؤالك وجملة دمسترة حاول واحد شوكتا شغلة وجملة كلا أنا جا وحن كيمي أحمد وجملة كلا واحد جملة سلقي كلامه معني الطلب يكون عليك هو طلب الأمر عليه معني علي وحى هذه سؤالك حاول واحد شوكتا شغلة أنا جا وحن كيمي أحمد منام هاد لو soo qortay mid sax ah soo qortay soo laakiin qish lama ogola qishin idiba kuma arkaysa aydan ali wuxuu aaday iskoolka macna ali wuxuu aaday iskoolka ma takalay sheeg maxaa tiri xaawo waxay joogtaa shaqada xaawo waxay joogtaa shaqada anigu waxaan ka yimi axmed macna afdoosh noogu sheeg bitte ya afdooshadan idinku sheegay maxaa Soomaali idinka sheegay اوكي خطره لما جمله سو qortay adigana hal jumla ka dhiman xarjinay waa khatra cismaan khatra kaliya ugu qoran khatra cismaan niyo mise waa khatra khatrada waxay soo qortay macalin maxaa tiri anigu maxaan ka imi khatra niyo mise khatra cismaan macalin maxaa anigu maxaan ka imi aniga waxaan ka imi axmed ha aniga waxaan ka imi axmed ma macalin wali aniga waxba kuma soo qoran khatra soo wadaase ina waa khadra cismaan baan rajinaya jumlo kaliya ka dhiman laba soo qortay soo maxaa tiri cali maxaa tiri macalin ina isku soo dartaanin baydin waxay idin fiican saddexda jumlo ina isku soo dartaanin sida khatro iyo sameynayaan way hadii kale wadi ka kala lumayaan fadlan qof waliba hal mar ha isla soo diro comma ku qaybi space kama yeelayo waxa qortaa cali wuxuu aaday iskoolka comma ama punct xaawo waxay joogtaa shaqada punct aniga waxaan ka yimi axmed punct saddexda jumlo saas soo raacay hal mar سنة هالمر واحد قلت ولا سوكو بيني صابردن هرتا ده بالكينيا ولا آخرين هاي فشلين مر هما علي محاتر علي جهت علي حقو هذا سكولك هي علي سكولك هذه حاول شغلي جوجتا أنا جو حنكيمي فون أحمد أنا جو حنكيمي أحمد خطر aniga shaqada jooga laguma weydiin waxa lagu yiri xaawo way qofka shaqada jooga waa soo qortay maxaa ugu celis waxa ka maqan aniga Axmed baan ka yimid taas baa ka maqan wax kale kama maqnay صدح خطرة ميون كل جناه لبا خطرة عاو isku fashilan mid kasta khatra kaliya ku soo gashay khatra ismaan wariga khatra kaliya ku soo gali jirtay laakiin ma khatra iid ba caaw la qaadatay magaceedii mise khatra Cabdullaahi taal macalin khatra iid mad iid ka raacisid sida kale wala ma kala garanay kale moogtay khatrooyinka adigu waa inaa wala raacisid laakiin anagu kuma qori karo suumka kuma qori karo liiska waan ku qornay habeenkii dhawaan helay macalin xaawo xaqiyatina adiga macalin Soomaali inuu adaa la rabay inuu ku soo qoritay khatra kaliya ku soo qoratay xaawo waxay aaday shaqada cali waxay aaday iskoolka xaawo waxay aaday shaqada aniga waxaan ka yimi Axmed wala raagteen laakiin reer biyaanis inay معلوم
soona macallin marra kuu soo diray inaad jumlooyinka yaryar inta idinku qaataan maahan may ardayda qaar baan sugaya qofka soo dhammaystiray waa jira macallin Aamin Yuusuf ma ka haysaa waan eegaya walaal aba waa ku mashbalmalay Aamin Yuusuf haa waan arkay la soo qasay يا رير بيانيس sorry axmed macallin laakiin waxaa u shaqadii joogtaa way ahayd markii hore soo ma gina waxay joogtaa shaqada gina waxaa shaqadii aad baan idin qoray miya waxaa waxay joogtaa shaqada waa mahadsantahay macallin way xusuus maxamed hadaa mudan macallin gina waxaa waxay joogtaa shaqada cali wuxuu aaday iskoolka aniga waxaan ka imi axmed aydan haba iga soo kala tagay kolley gina qof meeshuu joogo qof meeshuu aaday qof meeshuu ka yimi saddexda wax rabaa sheegay aydan علي وحي هذه سكول كحاول وحي جوكتا شقدا أنا وحن كيمي أحمد صدح ذا هداف وهو قربة ها علي وحي شقدا صدح ذا هداف حديد وحي كدي أنت هنا ماشي جوكتيد ماشي كتمي يماشي هذه سعودي دنا شيء وهذه صدح نصيصة حوس وقرت لك يا وحسو قريه يا dhiman qof haduu jiro dhiman macallin wan soo diray ma cid soo dirtay ma dooniyo waxaan rabaa inaan bilaabo cid walba wax soo dirtay way yimaadeen laakiin cid wax soo qoraysay baan sugaya haday jirto oo macallin mid baan ilaaway waxa wixii kale macallin wax rabaa hadiis ayaa laba daqiiqo aan sugayna insha Allah dambe hay macallin cali iyo shaqadan ka imaahan markiisa حاول waxay joogtaa shaqada علي wuxuu aaday iskoolka aniga waxaan ka imi Ahmed saddex ismaan laga rabaa aniga waxaan ka imi Ahmed علي wuxuu aaday iskoolka حاول waxay joogtaa shaqada علي لما سوى كذا درجة ما كنت سوى كذا درجة كل وانا اركي خاطر وانا اركي يدي مال ان شاء الله وانا سوق جينا انا هل مرة سو درتي بيه iga soo kala dhacay macallin aniga laftayda بما إن شاء الله قف wax soo qoray waa arkaya soo qof waliba khaladkiisa uu ka baranaya qofka wax khalday macallin ma maqaltaa waa ku maqlaa walaal macallin khadrada maadaama badatay magaca anigu ma iska bedelaa ما يا خاطر إيد هدا كوسو قشي إيد كلها استعمال سوار الملح إيد كلي هدا كوسو درستي مركز سوق لو ما قعدوا مركز ماشي المقع لقى بدتلي تبى أنا قرنيا إساق كاو كوسو قبت مية خضرة تمام أديك مركز من قرنت تبع الكارس كهرة أم كتري أديك أديك إنجليزي تمام خلاص هدا تركي مقع كده وكوسو قري كتار دي ملها خضرة عثمان بوديني خضرة عثمان مقع وبدلين كتواصل أنا مش لقى بدشو سما ها أنا بدلين أنا اسمه قدر سنة إن شاء الله ولا الخطر عثمان وكل الصوت سلوك خطر عبد الله هذا خطر عبد الله سلوك خطر يدور على ذيك كلية يا خطرها أنا أول بخطرها هذا سوق شوفت هاي ما سلوك لا قرت دارتين هنا هذيك خطر وانسوتكن إن شاء الله ديما ولا سوتك إن شاء الله امتحان كمان عنده الأرض شيء هذا الكلاسيال ويتي في سنة قفل بفيل سنة بقول أنا ما قدرت بسكوف الشيء واحدة ما يصير سوما عيد ما يسوي هذا هاي معلم قفنا ما يسوي سوما قف يورانا يسوق متشلو سوبري يا هوي بات مانا يدا يدين كسو الرئيسي وحين عادي كبيت صلاة بيعاد لكن لسوا مياه مسوين وحيدا لغا شغاية iska dhaaf macallin waa ku soo noqon markay soo noqotaan bilowna markaas inoo sii wad macallin anaga keena aydan waan bilaabeynaa marka qof hadda wax soo qori kara ma jiro ilaa qish lama ogola moogta way isku dhamaatay mar haddii la bilaabay khatro ayaan ka bilaabeynaa bismillah khatro intee jeer wax soo qortay markooda soo qortay mar labaadna khatro way soo qortay laba jeer bas khatro laba jeer baad soo qortay soo ma معلم laba jeer ayaan qoraal ka hayaa tii koowaad waa macallin saan uga noqdaa meesha tii koowaad waa tan waxaan raadinayaa معلم soo dhawaada إن تأوها رئيسة أنت هلك جانك أنت تعاون جو خالد ما يترين ويجوا تعادي وانكسر هسقرة خاطر على علم تشيله جملة دي لغات ما وانكسر هسقرة ده إيه الجديد وانسق مع الإيه الجديد وانسقرة وذاك ما تنا كودال تن لغاتنا وصاهرة علي هاد سياشولة ها طلبات بنك
طلباتنا وخلط كثر دي ها أساسا كوالها طلباتنا وحبا خلط ورا macallin iga raali noqo halkan ka soo laabta meeshii waan joogaa waxa samuurada ma arkee waxaa ku dhifataa walaal meeshii stopta dabadeedna soo noqo hadday meesha ku dhifanaysa stop meesha ku qoran soo khatra cali ukaadi cali haad gegangen siya shuule halka kan imise khalad baa ku jira khatro ardada kale inteenaan ugeyn waxaan rabaa inaa idinku saxdaan imise khalad baa ku jira cali haad soo khadra u daaya shaqada ardaygu isagaa la rabaa inuu isa saxo imise khalad baa ku jira jumlada weedha keliya cali aniga xabadun aan waxa sad laba xabadood baa ila khalada haye cali hat in der Schule gegangen in may cali hat in an der Schule in die Schule khadra khaladkaaga waa ma jeedin xagee komadan xagee ka keentay koma cali iyo u dhaxaysa haad xagee ka timi waa khaladka koowaad khaladka labaad haad xagee cali taas waa ya haad xagee ka keentay gegangen xagee ka timi feben gehen bay ka timi soo maaha gehen ma sayn ba ma feben sayn ba khatra wax la weydiinaya fadlan qof waliba waa imanaya qof waliba ha sugo qof kasta ceebtiisa halkaa la keenaya khadro feben sayn leeyahay mise feben haben feben sayn haad xageed ka keentay genau cali east bay noqonaysa soo maaha labadan febna maxay isugu xijisay maxaynu hore usoo baranay laba feb markay isku dhacaan feben iyo hilfis feben fall febenka wuxuu dhacayaa dhammaadka jumlada soo maynaan soo baran dhammaadka jumlada for example gadaal baa soo qoray macalatan ku sheegay ja ich bin ich komme aus Somalia oder ich bin vor 4 Jahren aus Somalia gekommen 4 sano ka hor ayaan Soomaaliya ka imid gekommen xagee dhacday meeshii ugu dambeysay aydan taasuna waa khaladka saddexaad ay gashay saddex khalad baynu hadda haynaa aydan gegangen iyadana dhammaadka dhig waxaad tidhahdaa cali east suya shule gegangen qofka hadda wax soo qorayo waxaagan lama saxayo waa lagu jeeda inay qish tahay waa degin waa amaal wey amaal lama saxayo markii wax la bilaabo qofka wax soo qora looma saxo waa qof halka xoogaa ka qish lama ogola marka intaan la bilaabin sharaxaadaba waxaaga la soo qora macallin waan soo dir mar hore waan soo dir kadib waxaad inaad ku jirinto waxay u badan tahay inaan lagaaga shaqeeyo aydan cali east suya shule waa sax grammaticaagu waa fiican yahay problemkaagu waxa weeyaan feben mit sein und haben kama fikiraysid sidoo kale fortstelling aydan waa inaad ka fikirtaa markaan jumlo qorino kow waa inaynu ka fikirno horta febkaan isticmaalaya ma sein ma haben maxaan isticmaalaya hat gegangen gibt's nicht ist gegangen zweitens waa inaan ka fikirno sidee fortstelling xagee ereygu gelaya maaha si aan rabno inaan isu doomarnadiyo isku dhex yaacno si wax isdhex yaacsan 9 ist ayaan wataa gegangen dhamaadka gelaysaa suya waa sax suya waa sax aydan taalkaas ma aragtay taa way iga sii siibatay waaniga markii dhammaantaa soo laakiin hadda uma khaldan genau adigu khaladkaagu mid buu ahaa hadkan ku khaldan had buu ahay halkaa khalad baa mid buu okay how is in der Arbeit Ali had suya shule gegangen tan mar labaad baan noo soo celisay waynu loo sheegnaa hal jumla waa weli kaa maqan aniga axmed baan ka imaadan soo qorin iigaab aydan how is in der Arbeit waa khalad waa sax ist waa ku saxan tahay laakiin halkana maxaa khaladay positionka prepositionka khalad oo in looma baahnayn bay bay ahayd by der Arbeit how is by der Arbeit how waxay joogtaa shaqada by der Arbeit nicht by der Arbeit sondern by der Arbeit how is by der Arbeit by da kaliya ka khaldantay sidaa kale waa perfect jumlada tani way ku saxantay by gross oo qortay ma sha Allah Arbeit gross oo qortay preposition waa raadsatay aydan khaladka halkan waa la aqbali karaa halka kan khaladkeedu aad buu macquul u yahay biyaan isleef tan marka wax badan kama khaldamin ama jumlada labaad oo ku galgalatay okay intaas halkaas inooga gudbaynaa qofta la yiraahdo khadro waa fahamtay khaladkaaga soo ma laakiin Axmed kan hoostan ku soo qoray macallin sii soco marka dad baa ka soo dhex galay cali isti shule gegangen cali ginge shule soo khatrooyinkii baa isku khaldamay marka problemkiina hadduu bilowday
khadra kalaan iyana qoraalkeeda hayaa mana garanayso macallin qof walaaba qoraalkiisu garanaya ma ogtahay intee khadrooyinka isku qaldamaan haye waaye marka adigu soo dhaq qofku sida sheegay wuxuu qoree genau aydan waxay tiri Ali ginge zur Schule Hawa ist bei der Arbeit ich komme aus Ahmed waa kuma qofkaas waa khadra iid macallin khadra iid sehr gut Ali ginge zur Schule jumladaas way ku saxantahay waxa isticmaashay imperfect ging wuu tagay goormuu tagay mar hore uu tagay sehr richtig jumladaas aad baad u sax so Schule ina garo soo qortay waa ka khaldan wax kale kama khaldan Schule maadaama halkaas suya wadatid suya waa article isqarinaya iska jir nom ba meesha soo galay Schule waa nom aydan nomka ina garo soo qortay bes intaad kala waa Hawa iyada lafteeda ina garo soo qorno sabto Hawa Ali garo soo qortay soo ma jeed Hawa ina garo soo qor waxa uga tagaysaa Hawa magaca Hawa ist Arbeit iyadana waa nome garo soo qor halkaasna aydan riixtigu garo soo shraybin ba ka khaldan ama labada jumla positionka iyo prepositionka adeegsatay waa sehr richtig khadray halka kan iyadana garo soo qortay ma sha Allah يخكمي أوس أحمد بانكيني هل كاس بكا خلدنتي أوس ما هني أحمد ودن ما هني وفون بيرسون فون بالله استعماله أوس ما استعماله أيضا فوكمش يخكمي فون أحمد هل كان ميلايا بخلدي لبدا الجملة كره ريختي شرايبك سو جراسون كرين شرايبك مركبته هو بريفكت ويكون صحيح خاطري مركا خاطري وفي عن جراماتيكا وفي عين سو تانك حياة أي الله يمنع حياة حي صوغرت هل مربيات صوغرت حياة سنوات ما معنى لما تشير أو يسكح الثلاثين حقيقة جاكو يسكح الثلاثين حقنا ضد كان صالح كل وين رادي قيبت الواد مرك حبيته رئيسان هالمرصاد رأي ولا بدي يسكح تاسع الرئيس مس تنكره توه رئيس تاسع تيجو رئيس سوما هذه سكول كها كنا تيجي ولا نو يسوق جاري ما مرك حق وريك شرت لكن حتى أنا أرد مرة حاول يسوي الرئيس يدي مركان رادي كربان كرادينيه دينا كلام كرادي أيضا iyadana waan soo helay so problemku waxa weeye markay kala tagaan jumlooyinka in la isla raadiyo way yaraadaan aydan Ali ist zur Schule gegangen sehr richtig hal khalad kuma jiro Schule ayaa adigana kale inoo qorto adiga halka khalad baa gashay iska khalad la aqbali karo hawo khalad baa qortay meen oranayna ama waa Soomaali waan ognahay inay qori karto Soomaali ma sidoo tan qorantay way iga raacday laakiin sidoo tan ma qorantay hawo ma xayaada ku ciyaari luqadda magacaadeyso dojna haylaalin Soomaalina ku ciyaarina hawa saasay u qorantaa laakiin way ka khaldantay meenu ka dhigeena waxay ku leedahay seerto bay halkaas aan ka khaldaytana so hawa ist in der Arbeit egal bay waa khalad la aqbali kara khasab ma hina bay sheegtid khasab ma waa khalad la aqbali kara waa khalad macquula say riixti bi ku tahay in iyo bay inay isku khaladid dadka luqadda u dhashay ayaan meelayaasha aqoonayn in iyo bay istaba mariya oo qof jarmal oo waxa tirada ii kala sheeg uu istaba marinaya maanta marka bay macna waxa ag joogtaba bay ars markii abayd waxay noqonaysaa shaqaday ku dhex jirtaa bay abayd waxa weeye shaqaday joogtaa shaqada adigu shaqada ama meel soo ama dabaq sare ha ka shaqeyso ama hoosta ha joogto ama shaqada banaankeeda ha joogto ama shaqada ku dhex jirto adiga shaqaday joogtaa weey shaqaday u diyaartay ma shaqaday joogtaa shaqada u diyaartay ma hawa ist by the abay hayad waxa soo qortay macnaheedu ma taqaaniyo laakiin bay iyo indi ayaaba isaga keenba in iyo bay walaal way kala duwan yihiin iyo naqd professionada waxaan soo baranay inaan inta badan macna samaynin Soomaha way hadalka toosiyaan in aydan heb iyo soo how is in the arbeit waxay noqonaysaa how shaqadii ku dhex jirtaa shaqadii qabanaysa in the arbeit kan soo saagin waa la oran karaa laakiin bay baa ka saxsan in the arbeit by the arbeit laakiin way isku khaldaan inta badan ikhkome aus Ahmed Austan way iska raacdeen halkaasna waa khalday phone way adanadii khatreed way isku barbar dhacdeen adigana way ku saxantahay intaas kaliya ka khaldan ma sha Allah muxmedin waa fiicantii ismahan ayaa la yimi ismahan ma laba jeer ba soo qortay mise hal mar اسمها ماشي معلومات كده يصير فاشل كإنتالي ما لو هل مر وي اوكي ich bin gerade ساس لما قرأ ايه كدر ich bin gerade arbeite kommen علي geht nach zur Schule هذا اسمها واسحة تعاون هرد دير باسحة أنا قرأ كم مع ساسة أنا هاي إلهي أمريكي اسمها كسان واس سيد عانية بيلا يسكت دراسات فوق نحيا عابا إذا حاجة عقلي قلبها اسمهن والله بالله مع أساس أنا فاهمين وحاجة ساحة شو هبدأ وأنا حامل وقت مع المرأة اللي مركز قلت له قرار أيا بنا حيا مسا وحي يقولك العربية جملة لازم مسا خلت بها كتير اسمهن ich bin gerade arbeite komme أنت خلت كتير برفت تجيب هالك كيف كأربعة يا أربعة من نجا بمشي هيسني أربعة حاجين كويسين حاول شغلة تشوف شغلة كيمي ما أنا أحمد بان كيمي به حاول واحد شوف شغلة على بكرة علي إسكول
marka taas dayna ka tirtirtan aabayta iyo come iyo waxba isku dartay laba feeb baa iska daba tuurtay wax soconaya ma wax lagu dirsadana ma baahan aydan waxaad tiraahdaa cali ged naqsu shuule cali ged naqsu shuule iyada laftirkeeda qosol miirana naq maxay tahay gaari ku raacay man gaari u raacay naqsu shuule ama naq Ethiopia am naq de wadan علي فاق يا فاقن علي فاقتي نخ سورشول ناين فضلا فوحة خلدنا دسول قميسان جوجي علي فيرت نخ شوري جبت نيفت نخ أما اللغة هالنقطة أما هالنقطة بهالكي نخ يسوع مراعي كرانين شوري حاجة الله صعدا نخ ومركا ميركل وسعودي مركا ودن وسعودي مركا دو سعودي قبل وسعودي مركا سوكر والله استعمال نخ سكول وحوليه ميلية جارة إخكي نخ شوري جبت نيفت أنت في إخكي إندي شوري وده إخكي سويا شوري وأنا صبري بربسيونيلاس صو لوكالة بربسيوني دمانتي وأنا صديق وواحد كل رقم يسانين واحد عقد كلامه وواحد الأكبر يفرق أيضا نخ يسوع مش نخ مش أكيد أنت يسوع هذانا يسكول دفتي نخ يسوع ولا بد داتيف بربسيوني صوت يسوع ده بدك تمجرنا مثل ما مركي بربسيون كاستعمال إنه preposition of preposition ما تهي معه وين يسوي دي سنوم كان preposition كده بدي عشري locale preposition وين صادقين دمانتين وصادقتين سبب شو لما رياش الله استعمال سويدي ما صادقين مع مر ما نخلع استعمال شو لما يا دوت كوست ما رياش الله استعمال سويدي ما صادقين نين يا بان ربع حديدنا صادقين ويدين كل علني ما صادقين صادقين معه يا صادقين so دمان ما رياش الله استعمال جوابها وان صادقين locale دمانتو هل حبة كمان تيجي عشان رأي سوحي كمان كده هي مع لكن ناخذ مر صوت مر لو استعمال شولة واحد يدرين إنديا شولة so إن يوحو قاتا سو wax kale ma qaato kaliya wuxuu qaataa baan idin awf markii la weydiinayo iyad iskoolka la dhigan jirtay oo kale markii xagee ka dhigan jirtay markay noqotana wuxuu qaataa an dhamaan meelayaasha shuule oo dhan waa idin soo dhigay si u dhan yihiin hal erini kama tigi dhamaan meelayaasha goobaha loo isticmaalo oo dhan waa idin soo dhigay magaalada iskoolka guriga qof markii la aadayo gaariga meel walba wadan markii la aadayo markii laga imaanayo local oo dhan waa soo dhigatay waqtina dib ugu noqon aydan naq ما دقنا معا دور هبين بندقنا نخ واحد لا أقبل كرام أنت يا سكر معلم وحتى لا سويا شولة وين أسود نخ مركب ماشي كنت وين ترى هذا هرت شولة محو قاعدين شولة يسقى النوم يسقى وحليه ملاية يسودي شولة محو قاعدين شولة محو قاعدين ترى سوا أما إن بايد سوا أورن كذا سوا أوفيسيالا أيضا واحد ترى هذا علي جد مد لواد علي وصع داوي أنا جو أدي بانكوير وإن هذا سويدي سيد واحد اللي يورين شيء تيمبوس ديس فيبس سجنا وصار دقنا تيمبوس ديس فيبس رير بيعني سبينوناي رير بيعني سنن تيمبوس ديس فيبس كده وين ما أنت مصوبة صما تيمبوس ديس فيبس إسبدل كفرالك على وود تجي معك وفرن نبض عرضه إن الاستماشيد سيد خطرة إيد إن perfect أو تلاقي جينج أما إن سيد خطرة اسمها الاستماشيد تجانج صو الاستماشيد perfect أو تلاقي عادي استيجانج لا بدأ سكوفرن حالات كلا كوما فرنا علي ويتجي بالي هذا حتى جينج بين سكاع استعمال مثلا وسوق قابسنا واحد هذا علي إست سو علي جينج سويا شوري علي وحده سكول أيضا وحين هو سكول حياة اسمهان هردة كعوراري وكل كذا عاد بده هردات عادي ورسو سوق هذا إن شاء الله اسمهان ده وحاج وعيار ويلك والله ما معلن القرآن مو أساسا القرآن هو برانس وحي وقرأ لكن وهدر مو يعني جمعة جراماتية وقت جلسيد القرآن هو برانس لكن هذا جراماتية كسي حتى يا قرالك ولقى كل دنيسة وحي أنت تقول راعي معلن قرن ويا يسون يلا أيضا ده سبوربلين سو اسمها هذا الكاغو في عينه مركي حد ليس بريفكت بعد لكن بربرن كو كاستا جراماتيكي بعد دون هنا بريت أيضا عادي أنا وانا حقي هذا كان كلي تايد وانا حقي قرالك مونا والوتو سعدا مونا قرالك ويكون في عند مونا أبدا يقول رسول حسو قرت بي هيد محي سو قرت مار مونا واحد تري هوا استي باي آبايت باي دي آبايت شاو مال هوا استي باي دي آبايت كلمة أول قفتين مونا ويسو قرت حق قرالك بريفكت بكتا ورقدك موصو داعي صورتي يدو مونا قرت لي سو باسيس أيضا واحد تري هوا استي باي دي آبايت qoraalkaaga kalimeeyay marka kala soo dirdiriddaas dhibaato inoo geysta caawa in qofka waxiisi la raadiyo way la raadiyo hal mar in la isla soo diro ayaa fiican macal space marka isla ka baxa ayuu ku imanaya space bas raasi aduu ku soo dhaco on ali comment ich habe von ali comment halkan khalad ku gashay aamus ich habe von ali comment bit ich habe von ali comment
taasoo adigu ma lihid jumlada manas adigu ma soo qorin ها اسمع معلي ها إشهاب خافون عليكم ها labadaas soo qortay soo ma okay labadaas aan akhrinay aydan تصدحات xaawa حد ما يعرف مياه ma hayo wala labadaas aan helay waad kala soo kala qorisay ardayda waa kala dhex gashay aydan waxay tiraahdaa xaawa ist bei der Arbeit sehr richtig xaawa waa grosse ist waa richtig prepositionku waa richtig Arbeit grosse ayay u qoratay artikalka waxay u qoratay sax daad bay u rabtay die Arbeit ay ka dhigatay jumladaas 100% ayay saxtay hal meel oo khalad ku jiro bunkti ma eegayno hadda bunkti way maqan tahay laakiin bunkti ma eegayno xaaradeen ku jiro aydan halkan ayay laakiin kharadayo comment muxuu ahaa تابن ساين سمع كلمتي دم كلمة وجوه رسم كوسه هردر معنا علي كينج السورة شولة يا فارت مال هل كان محي هاد كومن سو ساين معين أيضا إخبين ده إخبين فون نواد استماش بريبسونال أول كوفي عن تيمنا قفت من الله يراد هو بريفكت ويا أيضا هل كان بيع استماش هل كان فون بيع استماش أرض استماري لا هاد متجور ما غش محمد عبد العزيز هذا استمار أيضا حاجة أصلا واد كوفي عنده كريا ساين يو هابن سكيلال ساين يو هابن وسي مهم وي أوكي تي ورسم كوسه هردر ما لكن هيدين علي وحدة تجي سكول كا وأنا هذا كوسه عليه هذا أنا أوكي وان أجي ولا الوان راديني لبضني كوري سميع ها فيرست وان تي ورسم كوسه دريبي بهاد أرسمه إذا أنا هذا يوسف قطع وسقط أيضا إذا أنا يكوس حنت صدق دبا ويكوس حيه مرك صدق دبا ويكوس حيه ما حاجة جراماتيك برفكت واتايمونا معنا هذا الكيما أنا وهالك أنا أنت يمك أيان هذا الكي سبحان الله ما بهذا لك هذا سرا هذا البقية ولا عبسنا سميد الإرياد هذا نخرين هذه كنا إرياد بوجل يا جدي يبوجل هذا السؤال فورش أتا كرقات إن لا إن هذا إرياد بدن ورا بدن تغني ولا هذا لك جراماتيك جا وبقول كي بقول برفكت باي فون أرضي سوهر يسوي ليه عاو سو شيخ محمد أياني ما نيامه شيخ محمد ما تشوفته معلم اوكي بل adiga waan اوكي wuxuu yiri Ali East halkan waa iskaga darsantay waa khara telefonka wuxuu yiri Ali East haduu meesha Ali East get suya de shule oo adiga ismahan mas'uul baatay marka Sheikh Maxamed ismahan baa la canaananayay adaaba ka sii daray ismahan macruurta wax ku soo qori jirtay caawa fashilantay ma xawlo wala quwwat Sheikh sida wax ka noqdeen huwa qoraalka waa ku fiicnaa xitaa imtixaanka habeenka dhow miyaad noo qaris caawa caadi ma wallahi markii iga soo tagtay waan arkay waxa in sheekadu waalan ma waadna khiyaantay ma imtixaan natiijo fiican buu keenay habeenkii wax badan ma uusan khaldin haddana waxa uu soo qoray ismahan uu ka daray bismillah mid kale laba jeer boo waxa iga soo kala tageen ma raalli ah dadka liita baa la helay waxay galitaa ma jira malaha iyo dii isku daba dhigtay maxay isku daba dhigtay maxay miya israaci karaan su'a halkan abadee wadata waxa tiri soo daa di so daa iyo di maxay isu daba dhigtay ilaa su'a erta wad garanaysaa in daa loo soo gaabiyay soo ma garan article mahal noom ba laba article qaadan kara marna daa buu noqday marna di maya khalad aydan waxa tiraahdaa su'a sababtoo su'a maxay loo soo gaabiyay daa ayaa waxa la sameeyay idqaam fish morton waan soo baranay soo ma hayn fish morton article waan soo baranay aydan waxa tiraahdaa Ali East get iyo Eastness ma raaci karaan hadda get ba isma ka tagay get baan geliyay hadana aydan hadda waxaan isku oranaa Ali Gingas iyo Shuli Ali Gingas iyo Shuli saas aan oranaa jumladaas waa ku ciyaartay xaawo balayt soo abayd hadda soo abayd Maxamed ma inaan soo baran abayd professional ku soo baranay waynu wada haysanaa fadlan buwaagta dib ugu noqo soo abayd in der abayd baday abayd von der abayd afartaba waynu soo ma balaybti xagee ka keentay suya xagee ka keentay qoftii wayba joogtay suya meel loo socda loo isticmaali jiray aydan waxa tiraahdaa xaawo East by the abayd iyadan hadda kuma noqon tan caawa ku qoriyay soo adigana ismahan baa ka dartay Cabdi Casiis waxba ima sugnaa Cabdi Casiis ma joogtaa Filsan ayaan aadayaa Filsan Cabdi Casiis ma uusan joogo saan rajeynayo khadka tuuray uu soo qori lahaa macalimiintu ma haysaa walaal waan aadaya hadda waxaan soo koobiyay ninka la yiraahdo Batman waxaan soo koobiyay qofkan soo koobiyay baan ku noqonay magaciisa Filsan Maxamed ayaan qoraa Filsan waad joogtaa soo ma qofkan joogan waa ka boodiyay waxba ma waa joogaa Ali halka gingi baan ka rabay telefoon Ali Ges indi shule ma hadda laga ma aqbalayo xasan ka rabay hadda waa naqishta wixii aad qoratay baan sheegin markii wax dhamaadaan lama ogolo aydan Ali Get is indi shule oo ku saxan tahay
فيبكم بكا خلدنا جين كدي هالك كان سي صح كوغو نقطه ساس way ku shurina gross aad u qortay waad ka saxantay ardada kale indi shuri iyo shuri waad isku mid kartaa isticmaalka ich komme aus Ahmed halkaasina phone ka dhigo ich komme von Ahmed kuma isticmaalo hawo steed hawo taagan tahay shaqada halka way ka khaldan hawo shaqada ma taagnay shaqada joogtaa hawo waxay joogtaa shaqada isti ka dhig indee aabay ardada kala mid tahay khaladta u weynmaha bay ka dhig adigana ma xumid so باي أديك لكن حاجات تحضر إن شاء الله واحد دم وقلقل كير وامركي ورسه هي إن شاء الله أيضا شيخ محمد وان مري يا يري وصل يرهدو آمينو سماها سهرنا عاو معنا معنا هبون كني سو قاعدين وقت وين كسي دمار ربع عاو سمو قطون فشل منام أنا حتى كيو الصوت أديكوا سهر شيخ محمد وان ايغي دونا ان شاء الله وحي كدنبي لكن markaan bilaabay saacadu minidka waan eeginay minidada wixii ka dambeeyay wixii soo gaari masaxay waa 10 la soo qashay sabarda anaga so kahor intaan shaqada la bilaabin 10 inta laga shaqeeyo la bilaabin ba 10 la soo wada diraa wixii dambe ma saxo aydan cali geed aniga waan ku horeeyaa macallin aamino adigana waad seexatay waxaad tiri cali geed indi shuule oo garanaysa gingi bay noqon lahayd waad khaladay feebkii ayaad khaladay feebku waxa ugu saxan hawa baym abayte xagee ka keentay baymna xagee ka keentay baym ma bageli karto إلا بايم فيش مرة مثلا أبد بيدا أبد فيش مرة من نقطة إخكامة سوى أحمد ناين إخكاء سوى أحمد إخكامة سوى أحمد جدني مركب قف كويس عتيد أي أشياء اللي استمرا هذه أنا خلادات كاجو وين تاس واستمرت إخكاء سوى سماش إخكاء سموت إحنا هذه يا منيرة ويتشوك تسمع منيرة هي هذا وينه وان كجود بينا منيرة نشوف منيرة ما تشوفه هبون إيج مان أوكي منيرة وان كجود بينا ما تشوفته هذه يا هبون ويصور على صغرك كاج سمع هبون لا صغرك كاجون هي حد يجي إن شاء الله وحكي خلنا دقيقة ماما هي ماما ما تشوفته معلن ها halka qoraalka ee wad sabka ku dirtay soma wad sabka ku dirtay waan eegay laakiin waa khaldana waa soo gaysay uma halkan ka arkay waxa ina waayda marka laba keenaya خلاص waad aragtay khaladkaaga waad sixi kartaa arag macalin laakiin arag ali ging isla aabay ali wuxuu aaday shaqada gabadha la yiraahdo munira waa soo habboon munira waa habboon waa see richtig shaaw ma sha Allah see richtig how ist bei der Arbeit ich bin von Ahmed ich bin von Ahmed gekommen oder ich bin von Ahmed gekommen ayaa ka tagtay hadda ich bin von Ahmed maxay tahay ich bin von Ahmed jadni ich bin bei Ahmed hadda la Ahmed baan la joogaa wayna bay istimaashi hadday tiraahdo ka imaadina hadda feeb baa loo baahan yahay feebkii ficilkii meesha feebkii macnaha sheegi lahaa ikhna wayna garoosay ugu halka aan baa iska qaraday labada kale waa see richtig feebka aan baa iska qaraday ich bin von Ahmed gibtni هذا نادي قاعد بوضح هبون قاعد بوضح حنت هالكم بس خرب سمسم عاو ما تشوفتي مياه أمني قرال كاجوان كشقي سماهين دقنا قرال كاجوان كشقي منا قرال كاجوان كشقي حياة وان كشقي سهر الشيخ خلت جملة بعد نص قلت ولا وان صوّد قرا مركي كواد صوّد قرا مرة بعد هذا نكو سعلش مركي كواد برادين مركي لو واحد يقعد ويحوي مدين halka mar soo hay taasaan kina halka mar isku soo dirtay ayaan eegay marka waxa qoraalkaaga ka saxan wax ka khalad Ali get in die Schule wala de Ali wuu tagay bari Ali iskoolku aaday marka ginge leh ama waxa tirada istige gangi fartaan ku qoray waa gross laakiin waa igal halka way ku saxmaysaa markaas how ist by the arbeit taasna waa saxday ma sha Allah sara sheekh habeen doon si fiican baad keentay waa fiican halka baad iska khaladay tempo space verb wax leeyahay ka khaldan Ich habe von Ahmed gekommen. Halkan beerta ku gash. Kommen verben sein way. So verben sein iyo verben haben kala garan weys. Sara Sheikh. Hadaan garanay noo sheeg saan loo socono insha Allah. Ma ba garanay waxyaabaha badankood maana aqaanba macallin fasirkoodii si israacayaan. Verben mid haben. waxaa jira verbenka qaar haben lagu isticmaalo iyo qaar sign lagu isticmaalo. Verbka sign lagu isticmaalo markasta waa sign sida kommen, gehen, fliegen, fahren verbkaas markasta waa sign markasta oo perfect laga dhigo sign baa loo isticmaalaa verben mid habenna markasta waa haben baa lagu isticmaalaa علشان ماشي هابدا بينا قل لي ميا هنا halkaas ayaad khaladay hada ayaad biin geli lahayd
sababtoo comment baa kugu khasbaysan asaa ka dhigi soo ma macaasha hadda ardayda naga horeysana usoo sharaxda naqdi waxa meelaha kala gela anagana waa inaan ugu celisaa insha Allah ardaydan waxay soo mareen waraal alifabet a inis asfay b inis kama aysan bilaabin marka iyaga idinku isku level ma noqon kartaan b inis baa isugu timaadeen qolyahan 8 bilood bay soo rafaadiyeen marka dad 8 bilood soo rafaadiyay waxay soo dhigteen hal maalin lagu guma celin karo laakiin insha Allah way isku dayayaa wixii aan dhisi karnaa inaan dhiso ma macaasha haye معلم علي جدي شولة وهدي خالد وين ما موجود ده سمع حاو جد أبايتن يدنا موجود ده مرايا يدن ما هي ستيد مرايا هيدا واقع صوتك واسكاب معقول عادي وكوبا كان أنا هذا غلطان كوه يستوى مراياش أنا ديجو بيرجي ما دان يجو مراياش واد ديجتي لكن لوكال بريفيسيون بعدين ديجاني لوكال كوانا يا مغرب سمعها ما نريتشوك سونا يا مغرب لا قان معلم ما دق كل انت كم قناه ما دقتين بس جينا waxaan maleynaa yaa xusuustay goorteen dhigan local preposition markii maamadina ka maqnay bishii ugu dambeeyay loo ma joogtay maamadu maamadu way maqnay waayo ku celiskii dambe ayaan idin dhigay local preposition aydan maamadu halkii kana waatan wixii dhan waa isku dhex yaacisay mid saxi kuma jirto صح معلم ikhkee indi arbeit xitaa sax ma noqonayso ikhkee soo arbeit bay noqon lahayd shaqadaan u socdaa markaas macnay samaynaysaa shaqadaan u socdaa laakiin waa macnadii aan meesha joogin macna ka duwan macnayaasha aan idin diray ayay samaynaysaa aydan insha Allah sabuuciiba hal ama labadii sabuuc mar ayaynu waxaynu samaynaynaa sadse baawonka seen u barano jumla dhisida u barano معلم aan noogu celceli inta badan halkaas waayo sadse baawonkaas hadda aad buu noogu xaysan yahay anigu iyadoo la sadse baawonka iyadoo la bilaabay baan ka baxay Soomaaliya wax badan baad naga maqnay iyadoo la bilaabay baan ka baxay waa u jeedaa ardaydiiba qof yar baa dadaalayay Sheekh Maxamed iyo Ismail iyadoo la dhigay hal 10 sadse baawonka oo waliba 10 kaana maalinta la saxin baan iska tagay dib male insha Allah waanu iska fahmeynaa insha Allah waan isku dayaa waxyaabo inaan soo celceliyo casharada hore kamid ah soo local preposition oo kale waxaad moodaa ardayda inaysan fahmin ba docbu ka dhaafay ma bahayaanba local preposition yaa haya shule article meelayaashii loo isticmaali jiray qof ku celinaya ma jira Sheekh Maxamed haye ma qorteen horta misameedina qori jirin berigaas bal hadaa qorteen buugta dib ugu noqda soo raadiya habeen dambe soo caawa habeenkii ugu dambeeyay sabuuca soo dhamaantiin khayr ayaan idin rajeynayaa wayno sabuuca dambe meelayaashaasi way idin qoran yihiin buugta dib ugu noqda ya imtixaankii walaal waynoo habeen dambe ardaydii naas reer biyaanaysa imtixaanka galay biri anaa idin soo diraya so si wadar guud waa laydinku wada sharixi karaa idinkoo wada socda mise qayb baa u doonaysaan wadar guud baan u baahnaa iigaal anagana saas ay fiican Allah idin barkeeyo marka habeen dambe biri baan soo macallin imtixaankii anaga qaaday ba maxayaad qofka ku dhagani walaal qof waliba wuxuu niga daa macallin aniga hay soo bandhigay anigu is ogahay xayaada waa inagii walaal kale maaha waa inagii hay anigu waan taraaraxay xayaad miyaa dhuumanaysaa xayaad way soo tahay toban bay ku jirtaa toban aan ku sheegay best xayaad oo perfectiye walaal toban keenay uu hoos maray qofka yirina hana soo bandhigin waa kuma aniga waa saana waa lagu soo bandhigay saana ma way joogto maxaa soo bandhigay waa shaqeynaysaa soo maaha habeen dambe waqti ma haysaa saana okay aydan saana haday macallin aniga baan gahay waxay fadareed nooga fara ma iyaal way habeen ana idin soo diray linkiska waynoo habeen dambe insha Allah meelahaas laga yaabo xilligan hadda joogno kale inay noqoto khayr badan baan idin rajeynayaa dhamaantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum asalaam warahmatullahi wabarakatuh sidoo kale dhamaantiin waan salaamayaa ardo ka qaadnay sheekh assalaamu calaykum